fikradda ah al-shabaabku waa khawaarij oo lama hadli karo laakiin anigu waxaan ku qanacsanahay inay dad Soomaaliyeed inay yihiin dhalinyaro Soomaaliyeed waxaynu ognahay dhibka ugu weyn ee Soomaaliya ku haysta ama gaar ahaan gobolka hadda ka timid anigu gobolkaasaan kasoo jeedaa waana tagay oo ka imid bishii 12 sanadkii dhammaad gobolka iyo degmooyinkiisa diyaaradaha loo kala raacaa dhibka ugu weynna waxaa weeye security-ga iyo nabadgelyo darrada ay shabaab ka wadaan fikradda ah al-shabaabku waa khawaarij oo lama hadli karo mabaadi' ahaan waa laga yaabaa dad diiniyan inay ugu qanacsan yihiin laakiin anigu waxaan ku qanacsanahay inay dad Soomaaliyeed inay yihiin dhalinyaro Soomaaliyeed in wada hadal lala geli karo anigu waxaan inta badan wadaad baan nahay oo wadaadadu iyo dumarkuba nabadday jecel yihiin baa la yidhi inkastoo hadda wadaadadu ay bahaloobeen marka mutafaa'il baan nahay optimistic baan nahay waxaan jeclahay wax walba waa xal waa laga gaari karaa marka aragtida ah aan aaminsanahay waxay tahay qof kastoo Soomaaliya ama shabaab ha noqdo ama Somaliland ha noqdee in wada hadal lala geli karo inay suurtagal tahay laakiin haddii albaabka wada hadalka lasoo xiro oo la yidhaahdo waa khawaarij dhiigoodana waa bannaan yahay hana la laayo suurtagal ma noqonayso waxaa kaloo taa beeninaya ninkii shalay dadka dilayay oo duurka ku jiray marka uu duur ka soo baxo wasiir buu noqonayaa maxaa isma bedelin mabaadi'dii uu dadka ku dilayay laga yaabo inuu aaminsan yahay annagu laabtiisa midna jeexin laakiin waxay u eg tahay aragti miyaa jiri karta in adigu dabcan dee dowladdana waa ka warqabtaa in lagu barashargaraynayo dowladda Soomaaliyeed nimankaa inaysan la heshiinin oo ajanda kale oo khaariji ah oo ka baxsan aragtida Soomaaliga miyaa jiri karta oo sida in meel lagu xiro oo la yidhahdo waa khawaarij yaan lala hadlin si mashaariicda dadku ay aaminsan yihiin qaarkood oo ah qolada nabad ilaalinta noogu joogta ay usii joogaan aan la rabay in lasoo afjaro marka waa su-aal runtii marka la fiiriyo aad u weyn una baahan intaan in ka badan in laga niqaasho laakiin waxaan rajaynayaa waqtiga yar oo ku haray bal inaad wax naga bidhaamiso arrintaas haday suurtagal tahay waa mahadsantahay hortay haddii cid walboo naga maqan aan wada hadal ku xallin karno waa muhiim in lala hadlo laakiin hadalka waxaa ka horeeya shabaab maxay aaminsan yihiin shabaab waxa ay aaminsan yihiin horta nimankan